halkan waa isbitaalka guud ee degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo waxaana maraan maanta booqday u korgeliyay xaaladda caafimaad ee deegaanka iyo midda isbitaalka degmada Garbaharey oo ay jifaan bukaano qaba cudurro kala duwan waxaana xilligaasi ka socday shaqada maalinlaha ee loo qabto bukaanada jifa isbitaalka iyo kuwa ka imaanaya degmada iyo daafaheeda iyadoona uu ka kooban yahay qaybaha loogu adeego dadka bukaan jiifka qaybta bukaan socodka qaybta daawada ee farmashiyaha iyo qaybta dalmada hooyada iyo sidoo kale qaybo kale badan sida warbaahinta qaranka u xaqiijiyay Dr. Aadan Cabdiqaadir Xaashi oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo guud ahaan xaaladda caafimaad waxaan u kala qaadaynaa labo qaybood oo kala ah xaaladda caafimaad ee magaalada gudaheeda iyo xaaladda caafimaad ee magaalada meelaha ka baxsan ee tuulooyinka runta xaaladda caafimaad ee magaalada gudaheeda isbitaalkana u shaqeeya ilaa dhowr MCH oo kaleeto oo ay fangareeyaan NGO-yo maxalli ah ayaa ku yaalo dhammaantoodna waxay bixiyaan adeegyo caafimaad oo kala duwan bay bixiyaan marka dad fara badan baana ka faa'iideysta oo magaalada gudaheeda ah laakiin xaaladda caafimaad ee magaalada ka baxsan ee tuulooyinka waxaan dhihi karnaa waxaa ka jirta baahiyo tiro badan waxaa ka jirta xaalado caafimaad oo aad u daran waxaa ka jira baahiyo badan oo caafimaad ugu tiro badan ee la keenaya hadda 3 bilood ugu dambeysay cudurka ugu badan wuxuu ahaa shuban biyoodkii ama daacun caloolaadkii kaasoo ka dilaacay meelo badan oo kamid ah Soomaaliya waxaa ilaahay maadiis xanuunkaas aad iyo aad buu u yaraaday hadda xilligan ma jiro qof u jiif isbitaalka wuxuu ka kooban yahay dhar qobood oo kala ah qaybta bukaan jiifka wuxuu ka kooban yahay qaybta bukaan socod eegtada wuxuu ka kooban yahay qaybtii shaybaarka wuxuu ka kooban yahay qaybtii TB-da wuxuu ka kooban yahay qaybtii dhalmada wuxuu ka kooban yahay qaybtii hooyooyinka uureyda iyo dhallaanka 5 sano yar lagula tacaaliyo MCH-kii isbitaalku wuxuu leeyahay gaari u shaqeeya isbitaalka gaarigaas oo caawiya dadka bukaanada isbitaalka la keenaya iyo dadka isbitaalada waxba laga qaban waayo ee meelaha ka baxsan magaalada loo diriyo khaasatan isbitaalka gaariga asaga wuxuu xoog saaro aad u caawiya hooyooyinka ku jira xaaladda dhalmada ee degdega ah ee wax laga qaban waayo u baahda ama qalliin ama u baahda daryeel meeshan lagu bixin kara mid ka sarreeyo kale ayuu gaarigu aad u caawiya markastana waa heegan markasta iyo xaalad kasta loo baadana wuxuu u taagan yahay inuu caawiyo waana jira gaarigaas guud ahaan xaaladda caafimaad ee degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo ayaa u muuqda mid aad u sarreeya iyadoona ay xusid mudan tahay in bilihii la soo dhaafay ay jiifeen isbitaalka degmada Garbaharey bukaano u soo ritay cudurka shuban biyoodka ee ka dilaacay deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Gedo Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka Garbaharey